Skype-ka halka laga galo ayaa ka baxday suuqa waddanka Shiinaha kadib markii dawladdu ay sheegtay inay u hoggaansami waayeen sharciga deegaanka. Microsoft oo leh Skype ayaa waxa ay sheegtay inay ka shaqaynayso sidii loo soo celin lahaa halka laga galo Skype. Sharikadaha ajnabigu leeyihiin ayaa cidhiidhi ku jira, laakiin kuwa maxalligii way kobcayaan. Warbaahinta bulshada ee Shiinaha sida Tencent oo xoog u samaysa ciyaaraha fiidiyowga dooda muddada dheer soconaysay ee shabakadaha dhexdhexaadinta ayaa isbeddel kale ku yimi waddanka Mareykanka toddobaadkan markii kooxaha arrimaha ka shaqeeya ay sheegeen dib inay u celinayaan sharciyadii uu sameeyey madaxweyne Obama. Sharciyadan ku saabsan internetku waxa ay dhigayaan in aad loo ilaaliyo qalabka dadku ay leeyihiin, waxaana laga mamnuucayaa inay ku socdaan xawli ka dheereeya kuwa kale. Saamigii warisgaarsiinta ayaa kor u kacay markii taa lagu dhawaaqay. afartii sannadoodii ugu dambeeyey 200 oo jeer ayaa toogasha ka dhacday dugsiyada Mareykanka. Mashiinkan waxaa loogu talagalay in uu ka jawaabo bilowgaba si ardada iyo macallimiintu ay u arkaan waxna uga qabtaan marka wax dhacaan. Habkan waxaa sameeyey wasaaradda ammaanka gudaha ee dalka Mareykanka. Dadka taageersanay waxay u arkaan oo kale marka lagu dhaqaaqayo sida dabka la isaga celiyo. war click ma noqonayo haddii aan la helin mashiinka robotka. Toyota ayaa waxa uu sameeyey 1 mitir badh mashiin qaban kara waxa bini'aadmigu qabto laakiin si buuxda aanu qabanayn. THR3 waxa loogu talagalay inuu u ekaado dhaqdhaqaaqa bini'aadmiga oo kale, warna uu u gudbiyo meelaha ku xeeran. dadka sameeyay waxay ugu talagaleen in si nabadgelyo ah uu ugu shaqayn karo meelaha dadku ay joogaan sida guryaha, cusbitaalada, dhulka dhibaatadu ay ka dhacaan iyo xataa hawada sare.